Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Fiidiyoga waxaan ku eegaynaa falanqaynta weekend inagoo ka bilaabayna DXY. Mar kastaba waxaan falanqaynaa YouTube listigaas markaa DXY waan ka bilownaa Euro USD ilaa iyo dahabka ayaan sidaa ugu xigsiinaa. Badanka lacagahan trade gareeya waxa weeyaan lacagaha ay USD du la socoto markaa badanka kuwa kala ma eego. Markaa haddii aan DXY ka bilowno, DXY wiigii hore waxay maraysay DXY wiigii hore meelahaas ay maraysay. Markaa wiigii hore waxaan rajeynayay inuu correction kan yahay kadibna kor la yar aadayo kadibna correction weyn sida loo soo geli doono. Markaa weli waa sidii kor bay sida waaday waxaan rajeynayay inaa movementigan ka faa'iidaysatay. Correction yar baa la galay haddana korrid baa la aaday. Marka waxaan rajeynaya correction kale inta la galo kor la aado haddana correction yar oo kale haddana kor la aado kadib lasoo dhaco. Markaa lacagtan waxaan ka rajeynaya waxa weeyaan dahab markasta waxaan ka rajeynayaa DXY-da hal movement iyo weli aba ayaa u dhiman. Abkii weli muu dhammaan down trainkan halkaa kasoo bilowday weli muu dhammaan ilaa waxaan isleeyahay ilaa meelahaas ay ku dhamaanayaa. Weli waxbaa u harsan ilaa halkaa waa la tegi karaa. Mar dhow marka halkaa la tago ayaan rajeynayaa in uu suuqu soo dhaco oo correction soo galo uu soo dhaco. Marka iminka intaan ka horeysa waxaan DXY waxaan ka sugayaa waxa weeyaan waa uptrend baan ka sugayaa. Wiigii hore ilaa meelaha waa la jebin karaa ayaan yidhi sidaan rajeynayo. Marka wiigan waxaan ka sugayaa weli inay korkii sidaa waado. Marka wiigii hore halkan marka laga soo bilaabo suuq uptrendkaas ku socday iminka wuxuu sameynayaa higher high higher low higher high ayuu sameynayaa. Iminka waxaan rajeynayaa inuu sameeyo correction impulse haddana correction kale impulse kale. Marka haddii aad ka faa'iidaysan kartid impulsigaas soo socda ilaa meelaha tegi karaa waad ka faa'iidaysan doontaa. Haddii aanad janiska kasoo faa'iidaysanna mar kastaba janiska down trainka dheer ee soo socda kaas ay rajeynaya inaad ka faa'iidaysatid. Janis down ayaa soo socda marka janiska downka ah kulley weekan ama wiigga dambe ayuu noqon doonaa. Marka janiska marka koowaad impulsiga koowaad ee up trainka ka faa'iidayso kadib markuu up trainkani dhamaado down trainka waad soo raaci kartaa. Euro USD wiigii hore halkaas ayay maraysay. Marka waxaan idhi wiigii hore way soo dhici kartaa meelahaas kadibna correction ayaa la sameeyey haddana waa lasoo dhacay correction kale ayaa la sameeyey. Waxaan rajeynayaa inay soo dhacdo correction kale haddana soo dhacdo kadib ay bilowdo uptrainkii kadib ay bilowdo correction uptrain. Marka haddii aad janiska imka soo socday down trainka haddii aad meelaha kasoo gashay oo kale waxaan ka odhan lahay haddii aanad gelinna janis yar oo down train oo interday haddaa tahay ama scalping haddaa tahay waa ka faa'iidaysan kartaa. Haddii kalena haddii aad long term iyo waxaa tahay mar kastaba focus garee janiska uptrainka ee dheer ee soo socda. Kani wuxuu ahaa impulse buu ahaa ilaa meelaha laga yaabo inuu ku dhamaado. Mar kasta waxaa xigta correction ayaa xiga correction dheer ayaa xiga. Marka correctionkaas haddii aad ka faa'iidaysan kartid insha Allah waa ka faa'iidaysan doontaa. Iminka correctionkaasi weli muu bilaamin. Correctionkaasi wuxuu bilaabmay ilaa adigu meelahan xaggan hoose lower lowgan marka sida loo jebiyo ayuu bilaabmi karaa. Marka waxaan rajeynayaa DXY-da waxaan ka rajeynayaa waxaan ujeedaa Euro USD-da waxaan ka rajeynayaa impulse correction yar haddana impulse kadib ayaa la bilaabayaa insha Allah uptrainkaas impulsiga dheere correctionkaas korka u socda. Marka Euro USD waxaan ka sugayaa suuqan horta down train ayuu ku socdaa. Waxaan ka sugayaa hal movement iyo down correction yar haddana down kadib markaas ayaan ka rajeynayaa inuu correctionkii dheeraa ayaan sugayay uu bilowdo. Marka haddii aad ka faa'iidaysan kartid down trainkan weli muu dhamaane down trainka halkaa kasoo bilaabmay weli muu dhamaan. Marka haddii aad ka faa'iidaysan kartid waxaan ka odhan lahaa ka faa'iidayso. Haddii aad suuqan ku jirtid waxaan ka odhan lahaa sii hay ilaa iyo lowgan la jebinayo hay ilaa lowgan waa la jebin karaa kadib wixii ka dambeysa ayuu suuqani aan rajeynaya inuu buy aado. Markaa suuqan waxaan ka rajeynayaa Euro USD waxa weeyaan down trend. Marka wiigan bishan May waxay ahayd bil aad u qurux badan bay ahayd. Waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysatay. Haddii aanad ka faa'iidaysan oo bil khasaara adiga ay ku ahayd mar kastaba dib u eeg tradeskii aad qaadatay ruleskaga inay ku waafaqeen emotions baad ku gelisay mar kasta waxyaalo badan ayaa ka qayb qaatay inaad khasaartid. Marka process baa la maraa ugu dambeynna marka dambe hadduu qofku samro uu guuleystaa. Mar kastana waxaa muhiim ah inaad samirtid inta processka ku jirtid. Marka Euro USD haddaan ka gudbo Euro USD waxaan idhi waxaa harsan hal movement iyo down kadib ayuu correctionkii weynaa bilaabmaya. Wiigii hore halkaas ayay maraysay GBP USD down trainkaas lagu soo socday halkaasuu down train ka bilaabmay. Weli waxaan rajeynayaa
inuu hal movementiyo doona u hadhay hal movementiyo doona ayaa u hadhay waxaa kaloo dhici karta inuu laba movementi noqdo marka ay halka movementiga downka uu dhamaado waxaa bilaabmi karaa correctionkii marka correctionkii weynaa ayaa bilaabmi kara marka weli impulsigan dheer ee halkaa kasoo bilaabmay weli muu dhamaan ilaa meelahaas laga yaabaa inuu ku dhamaado ilaa aggaa laga yaabaa inuu ku dhamaado markasta waxaa muhiima inaad suuqan direction kuu socdo aad ula socotid marka directionkii weli impulsigaas down trainka ee dheer ee soo bilaabmay halkaa kasoo bilaabmay movementiga koobaad weli muu dhamaan in yarba u harsan ilaa laga yaabo meelaha inuu ku dhamaado kadib ayuu correction ayuu bilaabmi karaa marka iminka waxaan ka sugayaa down in lasii socda marka haddii aad janiskaas down trainka ku jirto waxaan ka odhan lahay haddii aanad ku jirinna waad kasii raadsan kartaa janis kastoo down traina impulsigana weli wuxuu u dhow yahay inuu dhamaado marka ka taxadir markastaba ha isku sii eed hawsii hayn oo haddii aad trade kaga jirtid waxaan ka odhan lahaa halkaas marka hoos loosii dhaafo kadib inaad suuqaaga inta ugu badan aad tradekaaga iska xidhid ba haddii aad ku jirta haddii aanad ku jirin waxaan ka odhan lahaa sug intuu janis ku siinayo kadib sii raaca down trainkaas marka down trainkani impulsigaas iminka iman doona insha allah waa mid yar aad uma dheera laga yaaba ilaa meelahaas inuu yimaado kadib uu correctionkii weynaa u bilowdo marka haddii aad ka faa'iidaysan kartid down trainkani weli muu dhamaane waad ka faa'iidaysan doontaa insha allah NZD/USD iyo AUD/USD horta waa isku mid NZD/USD waxaa la sameeyey impulsi correction baa la galay haddana impulsi marka waxaan rajeynaya inaad ka faa'iidaysatay haddii aanad correctionkan waxaa ujeedaa impulsigan dheer aadka u dheer haddii aanad ka faa'iidaysan waxaan ka odhan lahaa waxaad sugtaa correction kale kadibna hal movement iyo down ayaa usii hadhay marka NZD/USD weli down trainkani muu dhamaan ilaa xaggaa hoose ayaa la tegi karaa laakiin marnaba hakeni ilaa uu ku siiyo correction ilaa uu ku siiyo kadib janis kastoo down traina waad ka faa'iidaysan doontaa marka waxaan rajeynaya horta impulsiga halkan kasoo bilaabmay ilaa halkani wuxuu u dhow yahay inuu dhamaado marka AUD/USD waxaan ka sugaya horta waa correction kadib baan down trainka ka faa'iidaysan doonaa marka waa AUD/USD NZD/USD waxaan ka odhan lahaa sug intuu correction ku bilaabmayo NZD/USD waxay ahayd lacag aad u qurux badan bay ahayd waxaan rajeynaya inaad ka faa'iidaysatay NZD/USD waxaa la sameeyey correction ayaa lagu sameeyey waa lasoo dhacay haddana correction kale ayaa la sameeyey aad baa loo soo dhacay marka waxaan rajeynaya inaad ka faa'iidaysatay impulsigan dheer inaad ka faa'iidaysatay waan rajeynaya haddii aanad ka faa'iidaysan waxay sugtaa correction kale sug kadib down trainka waad sii raaci kartaa marka waxaan rajeynaya inaad down trainka dheer kasoo faa'iidaysatay waxaan rajeynaya inaad kan kasoo faa'iidaysatay haddii aanad midna ka faa'iidaysanna correction kale sug kadibna hoos ayaan kasii sugaya USD/CHF waxaa lagu socdaa impulsigaas weli impulsigani waxaan rajeynayaa muu dhamaan ilaa iyo xagga waa lasii jebin karaa ilaa waxaan rajeynayaa inuu sameeyo impulsi correction kale impulsi kadib ayaa la sameynayaa inuu correctionkii dheeraa bilaabo marka impulsigani halkan ayuu ka bilowday marka ilaa iyo meelahaas uu gaari karaa marka janis kasta oo ay ku siiso USD/CHF waad ka faa'iidaysan doontaa janis kasta oo ay ku siiso USD/CHF waad ka faa'iidaysan doontaa kadib waxaa bilaabmi doonaa correction dheer marka waxaad ka faa'iidaysataa impulsigan socdo waad ka faa'iidaysan kartaa haddii uu janiska siiyo waad ka faa'iidaysan doontaa insha allah marka USD/CHF waxaan ka rajeynayaa inay korkaasi aado USD/JPY waxaa la sameeyey si weyn ba kor loogu sii kacay correction ba la sameeyey haddana waa lasii kacay waxaan rajeynayaa correction kale lasii kaco marka anugu kama faa'iidaysanayo abtrainka kama faa'iidaysan doono insha allah waxaan sugayaa inuu suuqani soo kala rogo uu down train dheer sida u aado marka weli down trainkii waadiyey ma dhawa muu bilaamin waxaan rajeynayaa inuu marka koobaad correctionkiisa abtrainkiisa kusii socdo kadib ayaan janis kastoo down traina ka faa'iidaysan doona marka USD/JPY waxay u dhowdahay inay abtrainkani dhamaado ilaa iyo xaggaa sare way aadi kartaa waxay samayn kartaa impulsi correction kadib baa lasoo dhici doona laakiin kama faa'iidaysan doona insha allah waxaan rajeynayaa down trainka dheer ee soo socda inaan la qabsado dahabka haddaan u imaado dahabku wiigii hore meelahaas ayuu marayey halkan uu marayey
waxaa la sameeyey correction, lasoo dhacay haddana correction kale oo lasoo dhacay. Marka waxaan ka rajeynayaa dahabka correction kale in lasoo dhaco, correction kale in lasoo dhaco. Marka dahabku down train ayuu aadaya insha Allah. Down trainkii kani waa impulsigii koobaad, impulsigani weli muu dhamaan, ilaa laga yaabo meelaha inuu ku dhamaado. Down trainka waa ka faa'iideysan doontaa. Intaas ayaan ku gabagabeynaya. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.